هو عقب سومين عكسوين قفنابا قصبكين فرحة هذا خاص xagga markii aad joogto weli ayaad dareentay soo maaha ها وحير لكن ما لا سعتها بيga koomadan inta uusan galin sidan muusan ahayn haddeertaan wuu isbedelay oo sidee horta aniga dabeecadahan weligay kuma arkin run ahaantii cuntada maanta loo soo dhigay iyo weliba qaabka uu asiga uu hadlayo wax badan ayaa aabbahayga iska beddelay runtii haddeertaan ma isdhihi karnaa cudurkan asiga ku dhaca ayaa sidaan ka dhigay maxaa yeelay aabbahayga dabeecadiisa sidaa maba ahayn ma aqaan isbeddelkan uu haddeertaan la yimaaday waxaa laga yaabaa inuu wax qarinaayo haddana sheekadii miyaad igu bilowday inii sheeg soo uma jeedid isbeddelka hooyadaada ku imaaday maro cimraantii aad adkeed aawayna bes iga dhahay leef horta mar walba sidan le maxaad ugu shakisaana taada kaleeto hooyadeyda waxaa laga yaabaa mataqaana xanuunka aabbahayga uu ka soo kaca dartiis in aydan farxaddaan u heshay marka iska dhaafoo ku barya waxyaabahaad ka fikiraysa beritoole aniga shaqo ayaan leeyahay habeen wanaagsan imraan ani adiga isma guursan karno ballantii waan ka baxay maadaama aan jacayl kugu cidleeyey lacagtan aniga ayaa ku siiyey xaal marin ahaan u qaado maxaad sugaysaa fur buug ayaa ku jiri
may warqadan ma akrinaysaan ku dhahay war aniga weligay kuma jeclaan mana ku jeclaan doon nolosheeda inta kale ma hadalkayga ma fahamtana waxyaalaha bareefadkii ahna lagama yaabo inaad taabid mana kaa ogolaan doono aniga ma taabo karo laakiin waxyaabo aad leedahay waxaa balana dambastaan oo kale inaan ka dhigo waana baabiinay hadday noo bilaabat ma doona inaan cimraantii aan qaani aniga ii sheeg yaa usayaan ku dhahay cimraantii aan ka saaya aabe oo markii dhibaatay dhacda qofkaas inay disho inay isku daydo adduunkaadaan kuu nacbanahay cimraani waa inaad isdhibtaa ugu dambayntii aniga waan kaa guulaystay gacantana waan kuugu dhigay cimraani maxaad sugaysaa dhaqsee meeshaan iga tur idil maxaad sugaysaa ma idisha dhaqsano haddaad idishiyo haddii kale aniga kalema jecli wax walba oo caddeena aniga naagta abukaadsada ayaan dhiibay wiilkaada firaaj hadduu ogaada inaad intaanoo sana been u sheegaysa hadduu ogaada muxuu samaynaya cimraani mid la soco haddii aan noolaaday iyo haddii aan dhintaba intaba waan kaa guulaystay way soo socotaa beelo waad fiicantay caafimaad igu cun soo dhowo gabadhay subax wanaagsan subax wanaagsan iga raali noqdo xal hurdada ayaan ka daahay saas darteeda ayaan saaka u soo daahay macantadeeda iga raali noqo saaka ciyo waa soo kici waana ku diyaarin balse hadda ayaan ku diyaarinaya haydhe nasiib wanaag hooyadeeda halkan joogto intay joogtana ma baahanayso wiilkayga shaqo ayuu lahay sidaas darteed ayuu ku baxay xali wuu ii sheegay waan iloobe soore gabadheeda diyaa waxbaa ka cabsanin wax walba si tartiib ayay u dhammaanayaan adigana hooyada dhabta ayaa tahay soo sidaas soo maa xaaskayga waa saxan tahay waxaan rabaa inaa hore ii sii qaadiin laami gurigeeda ayaan u socdaa hore ii geeya waayahay
hay waa kana waan helay hoohe adiga nasraxaadka aad ayaad u jeceshahay soo maahane waayahay been soo bixi dadkayana daasane aan baxnayna keen abrakadarba waaw aynada woo furmay soo ma jeedidna hayna keen hee caafimaada kuu rajeynaa waad maadsantahay gabadheeda oo gabadheeda awowgaan oo ha ii kaaliyo kaalay ay diyaaraa tahay soomaa idhigaysa gabadheeda marnaba hooyada gacanteeda aa sii deyna gabadheeda waa isku raacni middaas maa waaya soco raaca gabadheeda soo bax gabadheedii macaantadeeda boorsadaa si fiican u qaado waxna si fiican iigu barayaahe oo ku jeclahay hay baxe mudane jamiil waxar inaan kula hadlaayaan rabaa waayahay marow yaasimine daawooyinkay hore igu soo qaba tamam mudane hadda ayaan kuu soo qabanayaa soo fadhiisa gabadheeda maxaa sugaysaa firaad ugu dambeyntii adiga go'aan fiican ayaad qaadatay sababtoo ah aniga waddo dheer oo rafaad badan ayaa soo marnay sawda haddii aaleed arrintaa ma uu soo xaliilnaynba mideeda kale aniga xaflad yar inaan samaysano way nuugu qurux badan tahay liifi fuliyaha haddii aan u sheegna arrintan waxaa huwaala inay xaflad noo dhigayaan iqaban ku baryaa dadkaas arrintooda inaad naga dhaafta ayaan jeclaan lahaa maxaa dhacnay laakiin saaxiibo waxaan la yaabanahay dadka guriga jooga dhan aabbahayga xanuunkiisa kadib dadkao dhan way i farxaseen laakiin eliif ilaa iyo haddeertaan shaki iyo murug ayaa ku abuuran weli arrinta miyaa taagan waxaa loo baahnaa inaad mar hore xalisaan horta saaxiibow runta haddaan kuu sheego aniga eliif si xad dhaafa ayaanu jeclahay xitaa mala socota farxaddeedao dhan inay ayada tahay haddii ayada aan farxad siin waa anigana farxad ma helayo oo nolosha markay isku aad wax ku dhiwan baad arkaysaa middaas adiga ka gudub waxaan ku weydii lahaa adigii fooliya xaaladdiin intay maraysaa anaga saaxiib waan fiicanna dhibaato yaraa jirta saaxiib dhibka jira muxuu yahay haddana ii sheeg micnaheyga aabeyga ayaa rabaa inaa fooliyaha familkeeda baro laakiin waxaa isleeyahay xoogaa dhibaato amay meesha ka imaadaan adeerkayga ashrafa ninkaasi waa ninaan caadi ahayn inaan ku dhaca cayaarna ma yeelayo saaxiibo hayga cabsinino welwala igu abuurosaaye maxaa kalan kuu samayn lahaa waad maadsan tahay iska bax labadiina wada hadlayna okay waya mudan amarkaada ayaa jiro gabadheeda inta arrintaas ii sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego adigii faraad guurkiina aad iyo aadaan uga faraxsanahay asiga iyo janiishu inaad jeceshahan waan la socdaa laakiin shaqo ayaa ku sugayso micneey cimraan yaas wiilkeeda si zaa'id ayay u jeceshahay firaad agteedana muhiim ayuu ka yahay micnaha hadalkayga waxaan ka wadaa cimraan yaas si sahlan laguma dhaqmi karo si walbay ahaato maxaad ii sheegi rabta gabadheeda ii sheeg markaad koomaha ku jirto waxyaabo fara badan ayaa soo dhacay marwe cimraan adiga shilka sidaad ku gasho oo dhan ayay wax iiga sheegtay maalinkaasna cimraan xaqiiqada dhan ayay beddelaysaa siday rabtana way ka dhiganaysaa adiga haddii maskaxdaada isku buuqdo dhibaato male waa iska caadi middaas mudane jamiil wax isbeddelaaya ma lahan
adiga markii aad koomaha ku jirtay marwe cimraan haddii aan anaga kaa soo daahi lahayn barkinta ayay kugu ceejin lahayd wayna ku dili lahayd annaga ayaa kaa soo gaarnay soo maaha wax walbana indhahayga ayaan ku arkay cimraan waxyaabahaas maxay u samaynaysaa may aniga ma aaminsana arrintaas inay samayn kartana ilamaha arrintaas laakiin iska dhaaf waxyaabaana isku murjin anigana waxaan rabaa inaan nasto maskaxdayna inaan barbareen ku furo ma rabo oo isdhibaateena ma rabo ma fahanti markaa hore usii bixiisa yaasmiin hore igu wacay imaato waaya sidaad jeceshahay kaaroodka intuu yaalaana ii sheeg waa kaasaa miiskoo yaalaa kanna maxaa waaye haddana ii sheeg hee afrikaan dhalee ma ahano waan u jeedaa laakiin maxaa lagu samaynayaa ii sheeg hee waa la shiitaa dil raban gurigaa lagu quruxsadaa fitamiin waa aqwaan caadi iska dhigyaaqayo yuutuubkan ka fiirsade igaarka martidano ahna waa ku casuumeynaa kolen aniga aqoon uma lihiya kudha meeshaana kuu saaraya adile waxaa ku qurxinaysa ku qurxi wax iga gala ma lahan aniga maba aqaane anaa micnihiisa aqaano waan arki doonnaa shirkadda ayaan wacayaa sida wax loo diyaarinaya inaan ogaado waa muhiim sidaas darteed waan wacayaa hadda saaxiibe soo laab waa ku baryaaya maxaa dhacayna fuliye hadda sidaan iskaga hadal balse ninkaagii iyo hooyadiisa markay isdagaalan ayaan wax walba ku weydiinayaa horta fuliya dadkan dhibaatadooda ha ii dambeyso balse aniga maanta markii aan joonish xanaanada u diraya qalbiga ayaan wax ka dareemay macnaa waxaan isdhahay joonish adiga amaad weysaa aniga wax walbo ee joonis jeceshahan waan jeclaa maslaxaddeedana waan ka fikiraa balse waxaan diidayaa inay iga fogaato anigana midaas ma aqbali kara run ahaantii yaaqay waxaas adigoo keliyaa dareentay macantiday dad fara badanaa gurigaas ku sugan adigana looma baahna inaad sidaan u walwasho gabadhaasna waa gabarhay madax in laga galaa laga yaabaa adiga nolosheedii tartiib yaaqay fuliyaa nolosheedii iska daayay taada wax iiga sheeg ba xaggee maraysaane adigii albeerna intay waxnay maraayaan ha i weydiinaan ku dhah macaantadeeda iliifay xamaasada ayaa sacaaw waxaan rajaynaa albiir aabbihiisa hooyada inaysan ku adkeenay sababto ah xaaladdan waa halis soo maahan wararteeda jalmis aniga waan aqaanaa waxaa laga yaabaa inay ku adkaysay dhada 3 xaruur ayay ii dhalaayaan ayaga iga aamus iliifay waa iga nixinaysaa ka war aniga dhan fuliyaa 3 cunug iliif hay waaya isdeji laabtoobka furbal aan aragnay ninkeyga jamiil wuu baxay maxaad ula jeedaana ninka waa bukaan sidee ku fasaxdana khayr mas-uul ayaaba tahay adiga koley aniga shaqadeeda waan qabsaday marwo mudane jamiilna asiga ayaa gaariga dalbaday waxyaabahan oo dhan asiga amarkiisa ayay ku dhacaayaan sidaanay ku leedahay shaqaan gudanaa ka waran maafiish jamiilka xumaay ma aragtan asoo meelaha socdo maya ma arkin siduu ku baxay xagguu aadi waa baxaa ladhaa darawalka xaggiisoo aad ma arkin waxaa laga yaabaa qaybta gadaal ee beerta markii aad kadib inuu guriga ka tegi meeshaan aad iyo aad ayaan ugu xiisa ka qabani
ma qabaayo taleefanka isagoo xaaladaas ku jira xagguu aadi karaa kole aniga ma aqaan xaali wuxuu iri godoon ayaan ku gelinayaa meelaad ka baxdana waad weynaysaa markaas ayaan raaxaysanayaa micnahayga xal aniga asaga haye xalo toole maxaa dhacay sheeg xoogaa yar dagaal ayaan dhex maray waxaan rajaynayaa ninkaas booliiska inuusu igu soo dacweyn mise firaad ayuu aaday maafiish muddo 5 sano haddaba waa 5 sano ayaan aniga kooma ku jiray 5 sano ii bar ayaan wax maqlay mana ka jawaabi karin ma dareemi kartaa dhibaatada aan ku jiray ma fahmi kartid dhibaatada aan ku jiray runtaada weeye mudane jamiil kuley adiga meeshaan waad ku cusubtaa mii garanaysid aniga meeshaan zaa'id ayaan u jeclahay zaa'id meeshaan iyo beertaba aad ayaan u jeclaa aniga 5 sannad ii barka markaan aniga koomaha aan ku jiri haddii aan rajo dhigo waxaan soo xasuuso jiri meeshaan aad ku quraxda badan mar walbana aniga waxaan dhihi jiri mar lamaad waa kici doontaa meesha waa tegi doontaa biyahan aad ku qurax badan ayaad fiirsan doontaa hadda guriga waan u laaban karana keen ninkan way iwaalaya yaqee waxaa isku daydaa firaad inaa wacdi sababtoo asi aabiis haddii wax u sheegi wax ma kaa qariyaa wiilkaaga wax walbane beenkaaga ma sheegaya maho marka wac maxaa sugee ninkaagana meeshuu jooga asaa ka ogaahee dhaqso qabsa taleefanka waxee firaad qabsa taleefanka la hadal ها hooyo soo hadal wiilkayga firaad sidee tahayna waan fiicanahay hooyo shaqaan ku jiraa maxaa jirana aabbaha ma kula joogaana maxaad ka badda aabbahaaga ma kula joogo miyaa guriga ma joogo anigoo ogan ayuu iska baxay darawalka cusubna asaga wuu u wacaya hadaayitaa la yidhi waya hooyo dhibaato ma lahan aniga ayaa hadeertaan waacay walwalka iska yaraya adiga oke suldaankayga waa mahadsan tahay anigaa kuu duceeyey ilaahayuu samiirka noo badi hedha mudane iyaarkaaga firaad baa ku soo wacaya ma ka kaqaba ii dhiib halo wiilkayga abba adiga halkay joogtaa ma fiican tahayna haa wiilkayga waa fiicanay wax yar habay inaan soo qaataan rabi hooyaa kaa walwalsaneed xoogo teleefoonkaaga lama heli karo ayuu ahaa dhibaato male waan fiicanay aniga haddeertaan xaafaddan oo dhowahay okey waaya abbo laakiin hadda kadib markaad bixisid waa inaad nala socodsiisaa ma fahantayna اوكي ابا عمراني waad cabsatay soomaa yaa isgaari adigaa wax arki doono ufoo jamiil ninkan xaggoo aaday anigoo iwaala rabaa run ahaantii waa waree jebiga bannaanka aad ayay u qurux badnaay waad iska bixi kartaa adiga jamiil xaggee jirtana maa sheegtid markaa bixaysidna aniga waan kuu sheegay habe inaan soo qaata ayaan rabay cimraani mid ma la socota adiga
dilka aniga aad dil rabtay cimraane inaad iga qariso ma fiican tahay ii sheeg mideeda kale aniga adiga wax go'aan ma qaadin maxaad middaas igu samaysay ii sheeg si walbay ahaato go'aanka aniga ayaa iska leh welwelkii iska daa beri waxay dhici doonay yaa og jooniish hay macaantadayda haye sabrays ayaan kuu haayaa waayo waan ku tusayaa hay indhahaaga xirhee fur indhahaaga haye maajigaaga kuu keenay haye isgaarihe sugyaaqe wax kale ayaa dhiman haatana usha sixirkaa kuu keenay indhasarcaadka aheed haye sheekada kuuma joogto haddana maxaa dhimane bakaylihii waa kana haye maxaa kalehe wax kalaa dhiman sanduuqaana dhiman dhacdhacdhac ina furtidaa la rabaa hadda usha sixirka waa inaad ku furtaa hay dhaqsahe ku fur waa kana waxaa la rabaa indhasarcaad waali ah inaad ku furta haydhe dhandhandhandha waa kasa wuu furmay awoy bakaali waa kan madaxuu kuu saarnaa yaaba hadeertaan waad fiican tahay soo maaha hay diyaar ayaa tahay soo maaha waayahay mudanayaal io marwoyn dhegihiina noo amaahiya haddana indhasarcaadka qofta noo samayn laheyd ayaa imaanayso soo dhoweeya soo galhee bravo gabadhayda bravo waayahay bravo beela waaye haye beelo joolish bravo aad ka baxsatay macquul ma aha midaan wow beelo bravo waan ka helay bandhig fiican ayuu ahay gabadheeda kaali macaantadeeda wax ayaan kuu hayaa ma rabtaa inaan ku baro xilfad yar diyaar waay haddeertaan waad aragtaa gacanteeda maxaan ku hayaa jukleed waay soo maha gabadheyda macantadeed diyaar wixii dhici doona fiiri